macaanka salaada. Laba saxaabi oo mid yahay muhaajir midka kalena ansaari yahay ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu xil saaray in ay ilaaliyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saaxiibadiisa. Kadib waxay ku ballameen marba mid in uu seexdo midka kalena uu soo jeedo. Markaas midka muhaajirka ah oo jiifa ayaa saxaabiga kale salaad bilaabay. Waxaa meesha agteeda yimid nin gaal ah. Wuxuu arkay muslimiinta dhan oo jiifa, ninkaas oo kaliya ka soo jeeda. Wuxuu isdhahay fursad ayaad ku heshay. Markaas kadib qamuun laab ayuu soo baxsaday. laabkii koobaad wuxuu ku dhuftay saxaabigii tukanayay. Saxaabiga salaadiisa ayuu sii watay. kadibna ninkii gaalka ahaa mid labaad ayuu ku dhuftay saxaabigii. haddana salaadiisa ayuu sii watay. mid saddexaad ayuu haddana ku gamay. saxaabiga ayaa rukuucay oona sujuuday. ninkii gaalka ahaa wuxuu isdhahay ninkan xanuun ayuu dareemay, wuuna dhimanayaa. markaas ayuu meeshii ka sii orday. saxaabigii jiifay ayaa wax dareemay. dhiig saxaabigii taagnaa ka daadanayay. saxaabigii jiifay markii uu arkay ninkan oo dhiig ka daadanaya ayuu yidhi, subxaanallah, maxaad ii kicin weyday gamuunka koowaad markii uu kugu dhacay? wuxuu ugu jawaabay, ma taqaanaa hadal ka awood badan buuraha? wuxuu yidhi, salaad ayaan ku jiray oo suurad qur'aanka ka mid ah ayaan akhrinayay. waxaan diidayay in ay iga kala go'do. yaa allah, waa maxay dareenka uu dareemayay marka uu salaada ku jiray oo ilowsiiyey xanuunka? wuxuu ku raaxaysanayay waa salaada. miyaa laga helayaa adduunkan macaan iyo raaxo sidan oo kale ah? sideen ugu raaxaystaa salaada? kow, u diyaargarow salaada. kahor inta aadan salaada bilaabin, xiro dhar qurux badan oo carfaya, ka horna tuko sunnooyin. laba, iska fogay wax kasta oo ku mashquulin kara ama ku dhibi kara. ha tukanin adiga oo hortaada ay yaalaan wax ku mashquuliya oo leh sawirro. ha tukanin adiga oo maqlaya wax ku mashquuliya oo codad ah. ha tukanin adiga oo baahan ama lagu horkeeno cunto iyo cabitaan. ha tukanin salaada adiga oo u baahan suuli ama musqusha. waxaas oo dhan ujeedada ka dambaysa waa inuu qalbiga saafi noqdo. qofka tukanaya oo ku mashquulsanaada salaadiisa iyo la kulanka allah. saddex, xasuuso weynida allah ee aad hor istaagayso. xasuusnow weynida allah, in aad hor istaagayso boqorka abuura dhulka iyo cirka, midka ay wax walba gacmihiisa ay ku jiraan, alle naxariis badan, alle maqlayo una jeeda oo ka aqbalaya ducadaada. xasuusnow waxa uu alle u diyaariyay mu'miniinta aakhiro, raalli ahaansho iyo janno. afar, ku xasilidda salaada. qofka aan ku xasilin salaadiisa suurtagal maaha in uu khushuuco kuna raaxaysto salaadiisa, sababtoo ah degdegsiimyada waxay la tagtaa khushuuca. waxaa lagu waayaa ajarka. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku xasili jiray rukuucdiisa iyo sujuudiisa. wuxuuna amray kii aan wanaajin salaada inuu ku xasilo dhammaan falalka salaada. wuxuu reebay degdega. shan, faham micnaha aayadda aad akhrinayso iyo ducooyinka kale ee salaada. qur'aanka waxaa loo soo dejiyey in la fahmo, loo fiirsado. alle wuxuu qur'aanka ku leeyahay, kani waa kitaab barakaysan aan kuu soo waxyoonay nebi muxamedow si ay uga faa'iidaysadaan aayadihiisa iyo si ay kuwa waxgaradka ah u xasuustaan. mana lagu raaxaysan karo haddii aan la fahmin macnaha waxa la akhrinayo oo leh aayado iyo ducooyin. isweydiiya su'aalahan si aad ugu raaxaysatid maanta salaadaada. shanta arrimood aan sheegay ma la imaadaa salaada? ma ku khushuucday maanta salaada? haddii aadan ku khushuucin maanta salaada, waa maxay sababta keentay in aad ku khushuuci weyday? maxaad samaynaysaa marka kale si aad ugu khushuucdo salaada? haddaba fiidiyogan haddii ku soo gaaray, waxaan kaa codsanay inaad sii gaarsiiso walaalahada kale si ay uga faa'iidaystaan iyaguna.